nacas ayaa ku hodma guul lagu gaaro muran. kulan wacan ku soo dhawow kulan kale oo xiiso leh. waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa buugga xeerka awoodda 48 Laws of Power ee uu qoray Robert Greene. Robert Greene waa qoraa u dhashay dalka Mareykanka. waxa uu dhashay bishii May 14 sanadkii 1959 waxaana uu qoray buugaag uu kaga hadlayay istiraatiijiyadda, awoodda iyo sidoo kale haasawaha. 7 buug ayuu qoray oo ah buugaagta ugu wanaagsan dunida. waxaana ka mid ah 48 Laws of Power, The Art of Seduction, The 33 Strategies of War. waxaana ka mid ah 48 xeer ee awoodda, xeeladda haasawaha, 33 istiraatiijiyad ee dagaalka, 50 xeer oo uu la qoray fanaanka 50 Cent, Mastery, xeerka dhaqanka bini'aadamka iyo xeerka maalinlaha. buuggii ugu horreeyay ee uu daawaco Mr. Greene waa buugga 48 xeer ee awoodda. waxaa markii ugu horreysay la daawacay sanadkii 1998 waxaana uu ku soo bandhigayaa buuggan uu hogga tusaaleen u yahay qof walba oo doonayo awood, isla markaana doonaya inuu awood helo ama awood isaga difaaco awoodaha kale. xeerarka kala duwan ee buugga ku xusan waxaa laga soo qaatay nolosha dadkii hore sida Niccolo Machiavelli, Sun Tzu, Haile Selassie, Queen Elizabeth, Henry Kissinger iyo P.T. Barnum. buugga 48 Laws of Power ayaa waxaa la iibiyey in ka badan 1.2 milyan oo koobi. buugga waxaa lagu xusay heesooyin ay qaadeen fanaaniinta sida Jay-Z, Kanye West iyo Drake, iyo muuqaal uu sameeyey The Kid Laroi iyo Central C. qoraaga buugga Greene ayaa sidoo kale ku andacoonaya in madaxweynihii hore ee dalka Cuba Fidel Castro uu akhristay buugga. xeerka koowaad, ha ka muuqdheeraan mas-uulkaaga, never outshine your master. si aad u hanato awood ama aad u ilaashato maamuuskaaga, marna ha ka hoos bixin harka qofka ku xukuma. dadaalkaada, kartidaada iyo shaqo wanaagaadu macno samayn maayaan haddii uu ku sannifo mas-uulkaaga. noqo dantii garad, madaxa foorarsha. xeerka labaad, aaminaadaada oo dhan ha isugu geen saaxiibbadaada. never put too much trust in friends. learn how to use enemies. bara sida loo adeegsado cadowgaaga. saaxiibbada mararka qaar ka feejignaaw, waayo way kaa masayri karaan, si sahlanna way ku hungoobin karaan. dhanka kale, cadowgaaga waxba kuma qarinayaan. waad og tahay inay ku necab yihiin oo aad dagaal iskula jirtaan. waa inaad barataa sida loogu xamaasho. cadowgaagii hore ayaa noqon kara saaxiibkaada ugu wanaagsan. marka waa inaad barataa sida loo adeegsado oo loogu guuro cadowga. xeerka saddexaad, cidna ha la wadaagin waxaad maagan tahay. conceal your intentions. haddii aad sii shaaciso waxaad ku dagaalgeli lahayd, waxaad bixisay fursad lagaaga sii gaashaanto. kadib ciddaad ishaysaan, mowqifkaaga ha caddaynin. ha noqon mid la heli karo. qofka waxa uu og yahay wuu ka gaashaaman karaa, balse waxa uusan ogeyn kama gaashaaman karo. xeerka afaraad, haddii aysan laga maarmaan ahayn, aamusnaaw. always say less than necessary. haddii aad daldalanto, aakhirkii waxaad tahay mid ku hadlo wax aan xigmad ku fadhin oo ku qiimo tira. ogsoonow, libaaxa aamusan ayaa ka halisan mid ka qayliya. waad inaad garan kartaa goormaad u baahan tahay inaad wax sheegto iyo cidda aad doonayso inaad wax u sheegto. ha noqon mid meeshuu tagaba wuxuu doono ka sheega. aamusnaantaada badi. xeerka shanaad, sharaftaada dhowro. waxyaabo badan ayaa ku xidhan. so much depends on your reputation. guard it with your life. sharaftu waa seeska awoodda. intaysan sharaftaadu dhiman, cid kasta waad maamuli kartaa, balse markaad sibxato, ogsoonow inaad nuglaan doonto. waa sababta ay siyaasiyiintu uga cabsadaan saxaafadda, mar kastana ay u raadiyaan inay bulshada sumcad ku dhex lahaadaan. waxaad dooniba samee, sharaftaada dhowro. xeerka lixaad, qiimo kasta u hur inaad soo jiidato dareenka mujtamaca.
caught attention at all cost. waddo kasta u mar inay isha dadku ka qabato oo aan caannimo iyo shacbiyad lagaaga horrayn cidan adiga ahayn. haddii aad heli karto baabuuro wanaagsan, labis qurux badan, habdhaqan wanaagsan iyo labis qaaliya lahaw, waxaad u ekaan doontaa mid awood leh oo la qadariyo islamarkaana aad loo xishmeeyo. waa inaad ka dhex muuqataa dadkaas tirada badan ee goobta kula joogo ama aad la nooshahay. xeerka 7 shaqadaha lagu qabto. libintan adigu yeelo. Get others to do the work for you, but always take the credit. ha noqon mid isku dayo inuu qabto shaqo walba. ku shaqee dadka oo ku caanomaal dhididkaada iyo dheecaanka kuwa leh aqoontii iyo waaye aragnimadii ku habbooneed hawshaasi marka aad u baahan tahay in la qabto. hubina inaad ugu dambayn libintu adigu sheegato. mararka qaar haddii aad helayso dad inay hawsha kuu qabtaan, waa mid aad iyo aad u qurux badan in hawsha lagu qabto, balse ogsoonow in marnaba aan lagaaga horrayn inaad libintu adigu sheegato. xeerka 8 dadku ha noqdaan kuwo kugu soo carara kol aad dabin ku soo xerigeliso. make other people come to you. use bait if necessary. haddii aad sugto inta qof kale tallaabada koowaad qaadayo, waxaad noqon doontaa mid fashilma. hubi inuu adiga dhankaaga ku soo hirto oo uu noqdo qofka marka hore falceliya. haddaad rabto laaluush, xodxodo ama adeegso hab kasta oo aad ku soo dabi karto, kadib dheeliga ku lumi oo ka weerar meel uusan ka filayn. xeerka 9 guushaada ficil ku xaqiiji. ha ku xaqiijin muran. win through your actions, never through argument. haddii aad doonayso inaad muujiso awooddaada, noqo mid guulihiisa ku muujiyo ficil iyo tallaabooyin muuqda. nacas ayaa ku hodma guul lagu gaaro muran iyo hadal tiro badan. xeerka 10 ka dheeraaw kuwa murugaysan ee nasiibka xun. waa xanuun la isqaadsiiyo. infection. avoid the unhappy and unlucky. masiibada iyo murugadu wehel ayay jeceshahay. ka dheeraaw kuwa la saaxiibka ah.